إمام نواوي أو أيضا سي شرف له مقال كود هرتي كبلغان وحن كانوا سلام يا أرضا هوينك تريها عيدمada booliska Hirshabeelle waxaan salaamayaa dhammaan ciidamada Amisom ee martida loo ah kuwa deegaanka degmada Balcad nabad sugidda dhammaan kulligood way salaamayiin inta soo hartay waxaan halkaan iskugu nimid furitaanka afar mashaariic ee laga furiyay degmada Balcad waxaana ku amaanan maamulka ka jira degmada Balcad iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo dhammaan Hirshabeelle oo u saaciday inay howlaha socdaan iyo madaxda amniga ayadana waa taageersanahay waa Islamic Relief IOM qadar jaaranti intaas waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaada degmadii waa waxaad qabateen iyo inta loo dhiman waxaan kaloo maanta madaxweynaheennii Hirshabeelle Mudan Cali Cabdullaahi asoo noola jooga nasiib wanaag aan ka codsanaynaa laba arrimood oo loogu dhabdi badan degmada Balcad taasoo ah dhismaha wadada u dhaxayso Balcad iyo Jowhar oo codsigeeda hor u yaalay mudana madaxweyne waxaan ka codsanaynaa inaad taas codsigeedii oo mar 1 2 3 4 ee maanta tahay inaad codsigaas nala qaado waxaan kaloo codsanaynaa mudana madaxweyne waxaan kaloo codsanaynaa oo maseer lagu dishay howlaha ka socdo gobolka Shabeellaha Hoose oo ah xasilinta maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe nimankan booliska noo haysta ama waxaan shirbraha u naqaano in laga boofiyo laga qabto waa cadawga islaamka waa cadawga deegaanka degmada Balcad waa cadawga gobolka Shabeellaha Dhexe waa cadawga Hirshabeelle oo dhan marka si isku socodkii beerihii nabadgelyadii ay noogu wanaagsanaato dhibaan qabnaa hadda ma dhahayno Balcad waa nabad maamulku joogo wuu ku filan yahay laakiin nin beer aadi karo ama nin danaysan karo laguma jiro marka waxaan codsanaynaa taas in laga dhammaystiro codsigeena waa intaas mudana madaxweyne intaan nala joogtaan wixii arrimo iyo culays jira aan ku soo gudbi doonaa maseerka kale ee nahayna wuxuu yahay golaha deegaanka degmada Balcad sida ugu dhaqsaha badan in ayadana aan noo dhisto nasiib wanaag wasiirka arrimaha gudaha ugu joogaa haddii aan leedihiin afar degmaa hormarinay dib aan idin dhigaynaa idina taas raali waa ka noqon karnaa laakiin ma jeclan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu